يوبان الصحافة يرجوك مركب واحد بصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الصلاة سيدا وزيركم بشيء سيدا كور قبطان بريهم دنبه وحاجنا ورر عبسكوا أبوري بشدة غير سوال لا واس أو شيء إن دليرة ذا سيبها بلها دايرتا لك حيستو وحنا هالكن يكون شرح دونا كيسس كإلا يهدا يدك بريسك سوغاري باريستو ذا وبريسك فرقلي أما ده قلي أما با وكل ده شرح هذا وقعنته فاي يدك بريسك شغلة سوال لا وحسوا قاري لا يهدا لبيه طبعا كيس لبيه طبعا كاكيس وحوي أفر كمدي وحلي راع مركن لا هاي شايدي فاشيستان وطبتي باريسان بوشوغا ميد كمدنا أفر تاكيسنا وحاو حران أفر قف وحان نهضينا شرعية محكمة سيدة كلا لما مركي عيد كبيرس كباري وحن نقدين ورر أما كيسس أها بينابو قار كون مدة كيسمي لحري وهذا يقعد عيد مدة أمني كبيرس كوجران وحان نهضينا يا شرعي كوا لفتوده وايو قفكو مركو شيغا ولا waxa waajibka ciidanka booliisku ama qaranka booliisku oo kiilkay waxa weeye in dhacdada qofka muwaadinka soo sheegay laga jawaabo laga war doono la hubiyo la xaqiijiyo haduu markaa raadkaasi noqdo mid furmo oo baaristu si hufan loo dhexgeli karo oo tilmaamo la helo xogo waxa weeye halkiisa laga wada sharciga la hoggaamiyo haduu noqon waayo kiiskaasi wax la raacay waayo وحوي قفك صو شيء شرعي ده حيرك قربك بلا شيء شرعي لما رجعوا وايو وحاجة كيسس كان أو سيدا مغشين حبض الصحابة كمان برسونا أما لما بيشيلوا كمان برسونا يعني وحيارها هو بدل قفك والله طارتي وسيدا وعينك ويعرف الله يحيي ده أرز سحر وكري أرز سحر الله يحيي ده فرالكا dadka qaar loo adeegsaday marka la kaxaysanay iyadoo aanu ogaanay halka ay diinta islaam loo yahay halka diinta islaamka iyo sharciga dawladda ka taagay waana sax hadaba iyadoo dhammaan qarku arrinta uu ka galay heegan isla markaana go'aamada la isla qaatay ciidanka booliisku hadaba iyadoo ciidanka booliisku markasta heegan u yahay howlaha nabadgelyada qaranka ilaalinta shacabka arrimaha noocan ee soo kordhay awgood waxaan sooynana talaabooyinkan haddaan nahay wasaaradihii amniga ama dhammaan guud ahaan qaranka dawladda waxaan howlgelinay isla markaana xoojinay iyadoo horeba u jiray ciidanka booliiska ciidan badan oo booliisa oo dharcada oo adeegsanaya ciidamada kale amniga ee la hawsha oo ku haya arrinta tabagal iyo feejignaan iyo xuraan dhaba iyagoo horeba u jiray waxaan diyaarinay ciidamo mobile team oo gaafureeg doona magaalooyinka siiba labada magaalo ee arrimahan ugu badnaayeen waa gobolka Togdheer iyo Burco ee kiisaskan ay ka soo yeedhiyeen waa Burco iyo Murujeex waxaan diyaarinay ciidamo mobile team oo wareeg doona magaalooyinka gudahooda iyo dibadooda waxaan sii adkaynay baarista kantaroolada ee checkpoints-ka waxaan loo yaqaan iyadoo walba la baarayay laakiin ciidankiina waan xoojinay baaristana waan xoojinay waxaa kaloo ciidanka booliisku ay ku amrayeen in cid kasta oo falalkaas iyo fal kasta oo nabadgelyada khatar ku ah lagu dareemo ama looga shakiyo in ciidanka booliisku gacanta ku dhigaan oo hubiyaan waxaa kaloo arrinta si gaar ah loogu xil saaray saraakiil sare oo ka tirsan taliska ciidanka booliiska oo khibrad u leh shaqada isla markaana iyo tiimo iyaguna baarista khibrad u leh oo adeegsanaya ama kaashanaya hay'adaha kale amniga ee howlaha aanu ka wada shaqeyno ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa kale oo aanu diyaarinay telefoonno hotline iyagoo hore u jiray hargeysa oo kale waxa weeye telefoonada aan shacabka u bayaaminaya sheegaya 520175 waa telephone iyo 30455 oo
somtel burco waxa weeyaan iyagana saasoo kale hotline baan ku samaynay xarun iyadoo qorshaha gobolada kalena qaar hore u lahaayeen imikana ay noo qorshaysan yihiin burco kale waa 705 42 in 7332266 oo somtel ah tani ku wada cali ku waxa weeye hargeysa mar labaad ku celiyo si ay shacabku u fahmaan hadday wax la kulmaan ama ha ahaadaan arrimahan imika aynu ka hadalno amaba arrin kasta oo nabadgelyada khusaysa oo shacabka Somaliland iyo qaranimada Somaliland wuxuu dhibaysaa oo nabadgelyada khusaysa waxa weeye hargeysa 520175 inta wax filaysi fiican loo fahmay waxa weeye 34455 waa somtel iyaduna waa labada hargeysa iyadoo ay halkaa ugu diyaariyeen saraakiil sare iyo ciidanka hawsha loo xilsaaray oo anytime saacad kasta iyo minute kasta oo la soo garaaco ka qabanaya shacabka soo garaaca ee hawlaha ka hadlaya tanta nabadgelyada iyadoo laga duulayo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya ka duulayo laga bilaabo maanta waxaa jira waxyaalaha nabadgelyada khatarta ku ah bacda loo yaqaan beer social bisha maanta 22 Maarch 2017 waxaa mamnuuc ah bacaha madow ee loo yaqaan beer solka muraayadaha gaadiidka waana in muddo 4 cisho gudahooda lagaga jaraa waxaan u sheegaynaa oo halkan ka codsanaya taliyayaasha ciidamada qalabka sida iyaga ugu horreysiinaya ee kala duwan aan taliyayaashooda ka codsanaya oo soo jeedinaya inay ku amraan saraakiishooda iyo ciidamadooda in ay ciidamadu ugu horeeyaan arrintaas si nabadgelyada aynu soo jaan qaadno waxa kaloo shacabka reer Somaliland iyagana halkan uga bayaaminaya in bacaha beer social cid kasta inay inta ciidanka booliisku aanay joojinba ay gacantooda kala goostaan oo si xir uga gooyaan cidii ka goyn weyda ciidanka booliiska ay shaqadooda tay oo hawsha gudanaya oo ka jaraya hawsha iyada maadaama ciidanka booliisku yahay ciidanka mas'uulka ka nabadgelyada gudaha iyagoo hay'adaha kale ee qaranka nabadgelyaduna ay la fuliyaan oo la shaqeeyaan oo wasiirka arrimaha gudaha loo ministry ugu yahay dhammaan ciidanka booliisku waxay ku amrayeen inay amarada sidooda u fuliyaan oo noqdaan wax joogta waxaan si gaar ah halkan digniin ugu diraya waxa jira qolo dhalinyaro ah oo bacaha beer soo shaa ka shaqeeya oo kuwa ku dhajiya gaadiidka waana la wada yaqaan halkii kaga dhajiya ciidanka booliisku weeyii waana yaqaanaa waxa weeye waana amarka sideeda u fuliyaan hadii lagu arko iyagoo gaari bax ku dhajinaya waxa weeye hadhow sharciga la horgeynaya waana iska ilaaliyaan hawsha iyada waxaan dadweynaha reer Somaliland waxa qeexana in hadii ay yihiin falalkan hadda inuu soo kordhay iyo wax kasta oo nabadgelyada khatar ku ah cid kasta oo ku kacda ama isku dayda noocay doonto aatee wixii nabadgelyada khatar ku ah bulshada reer Somaliland iyo qaranka reer Somaliland in ciidanka booliisku ka qaadi doono talaabo adag oo sharci ah ugu dambeyn waxaan halkan amaan ugu soo jeedinayaa shacabka reer Somaliland ee wanaagsan ee awalba nala shaqeynayay ee wax kasta ee ciidanka booliiska iyo hay'adaha nagu soo gudbinayay waxa kale oo halkan idinka ballan qaadaya hotline-nada hadday tahay iyo telefoonada saldhigyada ee Jamhuuriyadda Somaliland ina toos noo soo xidhiidhaan taliska guud ciidii si wanaagsan u adeeg wada ciidanka booliiska mid ah ee telefoonada hawsha loogu xilsaaray ka qaban weyda inay nala soo xidhiidhaan ciidanka booliiskana waxaan ku adkeynayaa ku celinaya inay dadka u dhagin nuglaadaan fal kasta oo loo sheego sida waajibaadka bulshadu ku sheegay hadii dhacdo la sheego waxa ciidanka booliiska waajib ku ah iyadoo hore loogu sheegay oo ay yaqaanaan in ay ka jawaabaan oo ay hawsha kamida dhaliyaan oo ay doonaan hawshaas ma wax jira mise ma jirto waxa kaloo bulshada reer Somaliland halkan ka codsanay meel kasta oo dareen ka galo hadday tahay falalkan soo kordhay ee sixirka iyo hadday tahay wax kale inay ciidanka booliiska farta ugu fiiqaan anaguna waxaanu ballan qaadanaa inaanu hawshaas ay tahay uga jawaabno oo aanu wax uga qabanno ciidanka booliiska bulshada reer Somaliland wada shaqeyn wanaagsan baa ka dhaxaysa waxa la yiri far kaliya fool ma dhaqo
hawlaha hay'adaha amnigu dadkeenu waa wada biliis duruufo adag xaalado adag ayay soo maray waxaaba shacabka ciidamada ammaanka ka gacan siinayay maantana waxaan leeyahay waa in aynu wada guntanaa wax kastoo annagoo waajibkayaga qaranka noo xil saaray qabsanayna laakiin waxa weeye waa inaynu wada askar noqonnaa oo aynu soo gaarsiinaa oo la isu sheegaa annaguna aanu sida tago mara dhalina waxaan filayaa iyadoo de wixii su-aalahana weydiin doontaan waxaan ugu celinayaa mar koowaad mar labaad iyo mar saddexaadba bulshada reer Somaliland in cidda u sheegaysa warka inay ku yidhaahdaan waa kan saldhiggii booliiska u sheeg waxa kale oo aan u caddaynaya bulshada inay feejignaadaan oo dareenkooda furaado waayo annagu waxaan ciidanka booliisku abuurayba ama hay'adaha amniguba waa war inay war helaan marka warka la helana waxa weeye waajib qabashadii iyo taladii baa la helaa annagu taayada qarannimo iyo booliisnimo waa qabsananaa iyo hay'adaha kale amniguba laakiin idina waxaan idinka codsanayaa in sidee walba u gacansiisto ciidanka booliiska casiisaan wabilaahi tawfiiq